هل مرق عنتي تاج وفيديو إيه ها اوكي ها ودقيقة فيديو اسمه هنا فيديو نو كدرنا ده هاي واحد شنو مينا بحنا دكتور انه قاعد تاغنو يا ها ودوقتي قبل السنة من حق عافماتك يو حق أرماء برشة كليتان لكن هلكم نوقف عن وعافماتك عافماتك آد وحوي سعيد السمية وهذا نوفي عيه آد بونا سيء عافماتك يو سبدل وين نواهيا وعن جوت دخاتير آد في عن مركا حنونك يو هذا وحوي واقص رينيا مركا مسوران كتاب هذا عافمات العسبتال كود دوبالي أما وتكاشي وهاجاكسين لكن وحياة بدر ونقدم واجرانه وواحد نور لما يسترانه لكن وحب بهاي عافماتكم إن واحد بدل لترى والله قبضتهم أيوب بهاي كبعدي هوش أسمح بهانتين هول لقى هول قلوا ويغفرك وحنوصلنا لبعض هذا إسبتاك تبغى سوغانية حنقول بقى إن شهادة وحنا قدمان أي كسو كردسو إنه قصو تقضو إنه قصو تداش باهيد وجوجت وجوجت باهيد وبدن tahay waan joogto isbitaalku uu baahan yahay in maxaan ku yiraahdaa daawada tabarucda loo keeno daawo fiican tayar loo keeno shaqaalaha maxaan ku yiraahdaa wax dabooli kara maxaa ku ka helaani anagu hay'adana nama fangareeyaan oo ma haysano waxaan wax ku wadanaaba way iska feerka ilaadka iyo wixii jahleeyada dadka mudaqada u dhashay ka yimaada hadda inay halkooda dadaalka nooga sii wadaan oo ay baan rabnaa waxay u baahan yihiin hadda aan carfaabi karaan anigu halkan aan ahaan dhaawacda shakhsiyaanteeda dhaawacaanteeda qaybtii kaydka dhiigga ma leh صح wuxuu baahan dhiigga wuxuu baahan mishiinka qaboojin lahaa hayn lahaa baahan qofkii oo dhaawaca in qofka qolka emergency-ga la geenayo iyo qolka laga kaxaynayo waa inuu sariirta isagoo saaran la kaxayo laakiin waxa la saaraya kii dagaalka labada adduunka lagu galay baa lagu qaadaya shaqaalaha isbitaalka ayaa ka mid tahay muddo intee lag bad ka shaqeynay ilaa maantii la furay
2005 waa ka shaqeynay ilaa 2005 ilaa maanta baran ee gobolka Sanaag waxaan noo weydiin doonaa caafimaadkiisa iyo waxyaabaha uu ka faa'iiday markii cisbitaalka la keenay sidoo hore markii hore caafimaadkiisa sidoo ahaa wala ku soo dhawaado magaca ku bilaabay mooyinkan way socdaan aad u mahadsantahay haye kusoo dhawaay dabcan cisbitaalka weyn ee degmada baran ee gobolka Sanaag ayaad imika joogtaa ka waran caafimaadkaaga iyo xaaladkaaga suuya aad iyo aad buu wanaagsan yahay caafimaadkaygu isbedel weynna waa hayaa waxaana joogta dhakhaatiir aad u fiican aniga maalinta dhawada dhaawacmayna dhakhaatiirtu aad bay igula dadaashay waayo halbool ay go'ay halboolayaashii waxaa qabtay ugu fiican waa caafimaadka laakiin wuxuu u baahan yahay caafimaadku in wax badan la taro oo laga qabto ayuu u baahan yahay kabacdi hawshaas waxay u baahan tahay in hawl laga howlgalo waayo qof markuu xanuunsadana dhibaatada isbitaalka tiibka soo ogaanaya maxaad soo shaqeeyay oo qura waa dumarkii raggii waa gabeen xanuunkaygu waxa weeye muddo dheer baan jiray Seen Maxamuud baa la yidhaahdaa muddo dheerna waa jiifay sanadii 8 bilood baan xanuunsanayay marka dhakhtarkan hadda markii ku labaadaan imi weeye jiifka lay qorayna waayay 4 habeen baan hadda jiifay inta kale taboosaasan joogay marka xanuunkaygu shaqaalaha maxaa ku raadayay wax dabooli kara maxaa ka helaani aad iyo aad uga helaani shaqaaluhu heegan weeye saacad walba waa taagan yihiin qolada gobolka u dhalatay isla markaana qurba joogta raadman qalabka way yaalaan waxa way qalabkii qofka xaaladiisa lagu la suganay marka uu ku jiro qaliinka oo mashiinkana sidoo kale waxa way falaashadii dhamaantood ay yaala oxygen waa taala xaaladdeena wixii naga dhiman ay ku soo kordhiso oo inoogu soo deeqdo oo inoogu soo dadaasho ha sax waxaan wax ku wadanaaba way iska feerka ilaadka iyo wixii jahleeda ee dadka mudaqada u dhashay ay ka yimaada haddana in halkooda dadaalka nooga sii wadaan oo joogan waa haysanaa ambalaasida dabcan maxaad xogogaal ka ahayd in badan oo magaranaysa cisbitaal iyo mindhiciradiisa yaalin soo dhigay